kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xog xasaasi ah taliyaha nisa oo aroornimadii hore ee saaka fuliyay amar ku wajahan in la weeraro guriga agaasimihii hore ee nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaana hubka laga dhigay ilaaladii taliyihii hore iyadoo qaarkood la soo xirxiray ilaaladii joogtay guriga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir argoosi toos ah ayaa bilowday ilaalada ayaa la amray in aysan sugi karin amniga Fahad Yaasiin kuna laaban karin iyadoo taliyaashii hore ay haystaan ilaalo nisa ahi sababtuna ay tahay in sharcigu ogolaasho siinayo taasi oo waajib tahay qofkii nisa ka soo taliya in uu haysan karo ilaalo ka mid ahi nisa sidaas oo kale baabuur guriga taalay ayay nisa horay u qaateen iyadoo ay ciidanku sheegeen in ay amar fulinayaan guriga la weeraray ayaa ku yaala xeyndaabka filla Soomaaliya amarkan ayaa la rumaysan yahay in uu ka yimid madaxweynaha cusub Xasan Sheikh Maxamuud oo horay u sheegay in argoosi siyaasadeed uusan samayn doonin balse tallaabadani ayaa muujinaysa bilowga ama iibfurka mashruuca maalmaha soo wajahan si kastaba ha ahaatee argoosiga si toos ah ayuu u bilowday iminka gurigii Fahad Yaasiin ayaa gebi ahaanba la weeraray gawaaridii ayaa laga qaatay ilaaladii hubka ayaa laga dhigay waxaana la yiri guriga ma ilaalin kartiin ee shaqaysta amaba halkaasi ka baxa si kastaba ha ahaatee taliyaha cusub Mahad Salaad ayaa iminka mid u weerari doona raggii ka tirsanaa nisa isla markaasina ka mid ahaa weeraradii ka dhici jiray magaalada Muqdisho dhinaca kale qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax goordhaweed ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir kaas oo la soo wariyay inuu geystay dhimasho iyo dhaawac qaraxa oo ahaa nooca miinada ee dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala eegtay askar ka tirsan ciidamada dawladda sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahi ciidamada la qarxiyay ayaa watay gaari nooca raaxada ah waxaana soo gaaray khasaare kala duwan sida ay shaaciyeen dad goobjoogayaal ah amaba goobta ka agdhawaa inta la xaqiijiyay ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay qaraxaani halka ay ku dhaawacmeen 3 qof oo kale kuwaasi oo 2 ka mid ahi ahaayeen dad shacab ahi sidoo kale saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ayaa gaaray meesha ay wax ka dhaceen kuwaas oo sameeyay baaritaano kooban balse ma jirto wax faahfaahin ahi oo intaasi dheer xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa haatan degan waxaana caadi ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka Dayniile ayaa waxaa horay ugu dhacay weeraro qaraxyo ahi oo qaarkood la beegsaday rag mas'uuliyiin ahi waxaana badankood sheegtay kooxda Al-Shabaab weerarkaani qaraxa miino loo adeegsaday ayaa sidoo kale ka mid noqonaya falal ammaan darri ahi oo maalmihii la soo dhaafay ku soo badanayay magaalada caasimadda ee Muqdisho